عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalahayga Soomaaliyeed ee beeshkayga YouTube-ka iyo Slatif ku xiranay inta Soomaali weyn oo dheeleysan doonto cadaaladda iyo diinta taqaana iyo dhaqanka. soo wada dhawaada koobkiina shaaxana faraha ka farabixinina arin xasaasiyada maanta nihaya sir baan fashilaya Soomaali runta way diidan tahay beenta isku nimcaysa subscribe ku raadsata ya dali dibad way iscuneen Soomaali ilaahay halaagi tusay caasimadii Muqdisho saasay u qarxaysaa ya nafsi ilaahay laga galo way kuligin toobad keena Soomaalida Muqdisho ku nool ee Muqdisho ay toobad keena wiila gabar baa la kursaday gabar baa laga dhacay gabar baa la yeelay maana kasta nagu haya ma dhaqan iyo diin ah u leena kufsi wiil baa la qarxiyay wiil baa la toogtay wiil baa xil laga dajiyay wiil baa la yeelay wiilashii dhameysteen hablaha barqooyinka seexdaan la hadlaya habraha barqooyinka seexdo bararsan oo kaliya barareen ayaan la hadlayaa dhagiina indhiina fura wiil gabar la kusada meesha ma jirto xamdi lama kufan ala raxmaan raxiim maanta oo naga hooseysa lama kufsan xamdi ayada wiilkan caashaqday ninka sakaduudiga u ego sakaduudiga walaashiis marka liiday waa weynka kamid ahayd liida markay ka soo tumanaysa jaadka ku soo iibsana walaashiis ay ku soo tumatay maanta diiw raba iyo hunguriya u geeyay wiil salaamed inuu gardareysto wiilkan kalena Soomaaliya runaan ii sheega waa wiil lacag leh cidiisa lacag bay leedahay gabadhana faqiir ay ahayd guursay tiri walaale ma diyaar garoobina jaamacadaada dhameesuu iyo dhowr mar la isku dagaalay maalintii waa la isdagaalsanaa dhowr iyo 10 mar ay soo wactantay hoteelka ugu timaaday way dharbaaxaysay way la dirirtay way ku buuqday laakiin si hoteelka laga maqli lahaa wax lu kusanaag way qaylo dhaamin lahayd yaa dhashadeeda haday furanta mar hore soo tuman jirtay ilaahay naga sareeye runta la isku sheegay gabdhaha markii la iibinayo ciidaha faqiiriinta yaa markii xibnaha ilmahooda ay iibinayaan Amazon ay ka iibsanayaan markii nimanka Amazon faraha u galinayaan casirka markii la gaaro baraafuunka baflas ku soo sii jalaabiyada la soo gashto la yiraahdo arin jaamacadeedan u socday waxaan duruusan soo baranay waalidkii lagu sasabayo yaa sidii loo tunto waa la yaqaan 10 kan la isugu maro 10 shilin oo Soomaaliga runta la isku sheego Soomaaliyeey gabarna maaha garoob maaha xamar bay ka buuxdaa yaa wiilkan ala kulli xaal aan sheegay shirtiisan fashilaya koob shaaxa soo qaatay indaanga islaamaha bararsano barqadii seexda dhageysta YouTube-ka subscribe lagu raastaa dambi faasiqnimo lagu hayaa wiilkan way 10 mar ka badan ay soo wacday markay u timaadana buuqay ku furtay waxay tir Mooryaana ku adeegsanaya kuwa askaran aqaana kuwa saas askartii hawiya la isugu booteenaya yaa war madiini iimaada lahayn wadiini iimaanki maan ka tagnay ma asluubtii aan ka tagnay ma ilaahay xishoodana jirin wiilka wuxuu yiri aniga xaaraanna waligay kuma dhicin xaaraana kugu lama dhacaayo hadaa xalaasha ay igu sugayso walaal ay igu sugo nin ku sidoo kale meesha la jooga ma jirto wiilashan asaa hoteelka kula baashaylay wiilkan nabadayna ku joogan gabadha markay ayada lugeeda ku soo raadsanaysay Soomaaliya indhiina fiishka ka wada qaata markay u timaadana yaa naag waa sheedaan la yiri naag haday rabto sheedaan ay noqotay yaa uu tumashadii ka diiday afar qal isku dhig ayadana ka hormarta dabaqa ayada ku horeysa ka dhicideeda diklaasa ka dhici lahaa laba isku faco laba isku darajo ahaayeen ana kala xoog badnaan oo dhalinyaro ahaayeen labadooda runta la isku sheego naag lu kufsanay dabaq dhan lagama wada aamusnay sardhan oo hotel lagama wada aamusan qaylo dhaanteeda la maqla Soomaaliya isku soo bixleed maanta ninkii naagta Soomaalida isqaba markay isdagaalaan dariska soo baxo runta la isku sheego Soomaaliya runta diidanteen dariska soo baxo haddii ninkii naagta xataa wax yar hadal isdhaafsadaan waa iska daayba hotel qalna cid ka xigto oo la isma qaleenin asa waxa la yiri intaas oo wiilo dambiilo laga dhig waa wada qufsaday gabadha shilin fartiisa muusa saarin gabadha wiilkan muusan saarin sirtaana aan sheegay YouTube-ka iyo fataadhugii islaamaha ayuutada ku raadsada YouTube-ka soo fadhiistana edab ha wada yeeshaan yaa naagta meesha shashada inuu farsalka soo fadhiisanaysa iyo wiilka soo fadhiisanaya marka hore wuxuu rabay yaa inuu ku taajiru way ka noqon waysi wiilkii ma dhicinayada dhacday tala fara ka baxda qorshe jeedaan soo sameeyo ka soo dhaadhicsi ilaahay fashilinaya
يا كي ذنبنا إلهي كاقبنا قبل إيش إلهي باش إيش إلهي باش رنتان الشيء الصومالي يا ونمانكي واحدة ما هذا ميت قرح كودا ما هذا ميت برلمان لقى دجية ميت سال لقى سمع ميت سال إن قرح وسط لوجلي ورويلشي واحدة ما يسان يا هدو دلك الدلاقة وكجرة كل جينا كودا ما لنا ناقة برقة يجيفنا إن منك قرية ودي بقى يصول لنا ويلش عنا قدام معنا هرجع المدقي علماء الصومالي ده وحنكواننا يا ويل كان يا ما دام جوادك عنتي سكفر بحثتي توبت كان إلهي توبت كان ما فهمت إلهي الله توبت كان صومالي هذنك إلهي يا يوم الآخرة هذنك بقرك حكومة أي متهدين لمنك مركز ويل تير على لوسو استاجنة ويل كان هلا إقابه ما دام فرق حناق أسجل لفتي الشيطان وككانه هرجع المودك هر عدادنا وحن قعدنا عدالة ويل كانين للمريو wax uu jirkiisa taatama jirka gabadha soo xabaala soo keena gaaladaysa ka dhuudhiga meelaha nii jooga qalabadooda ha ku baaraan inay wax yar oo dhibca oo dayna aaya jirkeedina ku yaalay in kala dayna aaya wax kala xaabis inta gabadha dhaqso dugatiin anaka indhaha faraha naga soo gelinina wiilkan dar allu u cabsaday ما فهمتين يا Soomaali qabiil ay isugu helaysaa hawiye intuu dadka dulminaya ha jooga asaas ku dhamaaday asaas ku dhamaaday hawiye intuu dadka dulminaya يا ناقص قشن قبك يغسق ذي قرن كبناك وطالع ناقص استوى أو بركنت كسي حتى جنجد أوريسا أو جوري قد يسلع يا إنك استوى بأن قشن قبك جوري وقرتي سويا وعرفت مع عاصمة بس عاصمة كشاق ويا حمر هدرتان مالك استكدافة تعالى يا صحيح سيكدافة إيش شيء يا habartii odayga meelaha soo fadhiisanaya ciidaha soo fadhiisanaya wiilasha diirka ka qaada wiilkana hala toogto anakana diin la siiyo yaa lacag hunguriya ka carartay yaa naagta subscribe ka raadinayso wiil islaameed ay garanaynin been ka sheegaysana de afkeeda dheer ah xirato ayuutadii ilmaha inta laga goosto ay gaaladii ku faantay ayuuta ku raadsanaysaa ee dambi xaraan ka dharjinaysaa dadka war Soomaaliya ilaahigiina u toobad keena gabadhan ilaahay inuu xayaatul qabri waxay dummi ay sameeyay ilaahay inuu ka ilaaliyo qalbigeeda waasac uga dhiga xamdi u soo duceeya dhalinyarada hala ilaaliyo gabdhaha xeebabka jooga hala ilaaliyo gabdhaha tumanaya ha laga ilaaliyo yaa xaqu ku maqnaa walaashiis markay xaraan nin ugu tagays hoteelada ugu tagaysa xaraan asay la soo tumanaysa xaqu ku maqnaa asaga markaas walaaltimadiisa iyo sharafta ilaahay u dhiibay yaa mas'uuliyadda ilaahay u dhiibay markaas xaqu ku dayacay markuu hadda hungari la soo dhagdhakooliya afka dheer la taagayo yaa uu rabo naag 9 bilood calool cunugay ku soo siday yaa iyo nin soo korsado xamaali u soo korsado intaas wiilkiisa inuu meel uga soo baxay sugay markay tiir u soo diyaarinayaan yaa madad buu qarxiyay madad buu dambi ka galay waa maya war Soomaaliyeey saqiirkiin iyo kabiirkiin isku aqliya noqoteen dadkayga ummadeeda Soomaaliyeed yaa shiiqiina iyo caamadiina waa isku aqliya noqoteen dulmiga markii dadka lagu sameeyay wadaadadan ka soo halina haysta oo waxaan haystaa naagaha dhashada weyn oo barqadii seexdo bararsan ay ka dhan waa u moodo qaasiir bararay oo YouTube ku raadsanaya oo waxaan haystaa yaa dhalinyarada aan kicila oo cuuriyantay taariib ka dhameeyay maxaa la taariibaysin gabdhiya saasniga naagaan shirqooda sabaani ka war xar xamarow kaca heer xamarow wiilka cadaaladiisa loo raadiyo heer cadaadana waxaan ka codsanayaa cadaalada wiilkeena la mariyo ana kama qorno dulmi iyo musuq maasuqe Soomaalinimada iyo diinta iyo dhaqankeena hala fiiriyo xaquu ku maqneed warkan la dhasho maanta shaashadaha soo fadhiisanay wajiga buu ku soo fadhiisan walaasheen inta ma soo raadso kula dagaashim u soo fadhiisan yaa u baneeyay walaashiis in hotel inta tagtay nin baa shaalayo saaxiibadiis la joogo ee ka qasnaan inay u tagtay dulmi ku raadsato teedii baa dhamaatay torteedii dhamaatay yaa gabadha ator teedii dhamaatay ilaahay aan xisaabin doono laakiin heerkeedaan haystaa heerkan baqbaqle dadka islaameed nafafka kala dulminaya oo hadhooti dhuuli wuxuu sugay jaadkii u keenay sugay astaghfirullah war Soomaaliya toobad keena intaas waa iga waano dawladda federaalkana waxaan ka codsanayaa yaa in madaxweynaha sharafta leh wiilkaas inuu cadaalad u sameeyo
gabar kastoo lagu arko tumanaysana in sanbuuqada lagu fadhiisiyo oo xabsi lagu aruuriyo oo la karbaasho wiliba karbaashay u baahan tahay naagtiisina ku dhacdo kulligiin saasaan iga tagayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن نقول سلام دمانتيني أمد الصومالية مسلمكا أنت بيش كي كحرنا أصحابتا سلامت وشرفتي قيمها بزن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته